albaarkada maadaw kareem isaga saa kareystay markaasaan iyagu ka horreysayba horteed buu kareystay isagu albaarkada haa markaa albaarkadiiba ayaa galnay waxay gu yidhi niyow aan ku warramay shalay nin baan kareystay markaa anigu alaab baan meeshan iibinayaayo aan u imi macdana hargeysa aan u imi herer baan deganahay guriga ku leeyahay markaa bahal baan iibinayaa gu yidhi maarkuri la yidhaahdo haye baa ku yidhi nin baa markaa shalay tolo aan gaari ka karaysto ninkii wuu iga shakiyey tusbaxaygana kitaabna halkan buu yaallaa markaa tusbax iyo kitaabuu sidemiyaa ha kitaabka halkan buu iska yaallaa marka meesha qolkiisaan galay haye tusbaxuna halkan buu yaalla wuu rogayaaba markaa wuxuu yidhi ninkaas wuu iga shakiyey shalay markaa wuxuu yidhi ila shaqee bahashaasaan iibinayaa niman baan ka iibinayaa bahasha nimanku wayna la soo hadli doonaan markaa adugu bahashii wuu i tusay wuxuu yidhi Saleymaan isma garanayno ana magacayga xasan cali baa la yidhahdaa markaa waxa weeye inaad la shaqaysan doonayaa maalintii $30 baan ku siinayaa markaa maxaad kala shaqaynaysay meesha yaallay wuxuu igu yidhi bahashan maarkuridaan iibinayo waa bahal qaaliya buu yidhi giraamkeyga 30 waxaa la siistaa $20 milyan buu igu yidhi giraamkeyga markaa niman baan ka iibinayaa buu bahasha markaa waxa weeye adigu waxaad ii noqonaysaa nimanka waad ii soo qaadaysaa marka lu baahdo wixii aan u baahdo kul baan kuu diranayaa saasaad ila shaqaynaysaa weliba haddaad ila shaqaysana dilaal wanaagsan baan ku siinaya aduu ninkii de horta warkiisii adigu markaa qaatay maalin markii la joogay maalintii dambe ayaa aan bartii ugu yimi wuxuu igu yidhi markaa niman baa soo garaaci doona Saleymaanow markaa niman buu la hadlayaa aduu markuu nimankii telefoonkii kula hadlay ayuu tus xibaalka rogaya soo rogaya wuxuu igu yidhi Saleymaanow tus waxaa rogay nimanku la hadlayay markaa qolaan bahasha ka iibinaya la hadlayaa buu igu yidhi haye markaa wuxuu igu yidhi weli wada fadhidaan markaa labadooda haa waan wada fadhinaa haye oo markaa soo qaday inuu qaadkii waxaa soo qaatay wuxuu igu yidhi markaa Saleymaan tus waxaa rogay ma garanaysa faal baan dhigayaa buu yidhi nimankaa maxay tahay bahasha aan ka iibin doonay aan tusayo waxaan halkaa ka ogaanaya inay nimankaasu ay arrin kala wataan inay aniga dhacayaan wax noocaasa maad ka shakin markaa markuu yidhi faal baan rogaya maya waxba adigu dee shaki waxba laakiin anu shaqadaydaba horta markuu yidhi $30 baan ku shaqadaada la siinaya dhacsanaa bahashan 20 milyan iyo waxba iyo dilaal waxba adigu hordhigay ma garanaysa kadib adigu yar kadib wuxuu igu yidhi nimankii way nimankaa u tago soo qaad gaarigii baan ka haystay nimankii baad soo qaaday nimankii maad garasay markaa adaa soo qaadaysa waa laba nin oo afka ku yar adag iyo weliba aad moodo dabadaha ka yimaadaan waa soo qaaday bartii baa keenay ninkii bahashii oo halkan imika ku jirto ayuu furay nimankii wuu tusay bahashii maarkurid ahayd nimanka waan ku qanacnay yidhahdeen ma iibsadeen markaa waxaan ku qanacnay waan ka iibsanaa bay yidhahdeen wuxuu yidhi lacag baa laydka baahaya carbuuna haddaad iibsanaysaan waxay yidhahdeen berito waan soo qaadna carbuunta subaxii dambe adigu bacday ilaa 12 meelaha ay adigu nimankii maxaa tay ay noo yimaadeen iyagoo labadii nin ah intaa ay imanayaan isagu tusbixii isagu rogaya markasta wuxuu leeyahay nimankaas bilay adigu waxbuu rogaya markastaba nimankii adigu loo yimaade $10 bay nimankii ninkii u keenay kadib waxay ku yidhahdeen saambalna si annagu waan tegaynaa annagu lafteeda dilaalin baan nahay bay yidhahdeen waan tegaynaa diyaaraddan raacaynaa berito ayaan tegaynaa airport ka dhoofaynaa markaa saambalna si aan qaadno markaa bahasha giraamkeygu suunigaas ugu yidhi waa dhibic ma garanaysaa sida dhibicda roobka oo kale intaasaa giraam buu yidhi markaa wax giraamkeeda markaa qiimo ahaan mise ku sheegay giraamkeygu waa 20 milyan buu yidhi bahasha nimanka anigu halkan ku sida dee kolle waad arki doontaan marka hore casaan bay markii dambana dee wax adigu madow bay isku bedeshay oo macnaa silfar oo kale ay isku bedeshay marka nimankii bahasha marka saa loo taabto way kala duldulaysaa wax yar firadha yar fara badan bay noqonaysaa marka dambana isku soo ururaysaa wax yaroo ka mid a oo irbad caaradeedoo kale ah bahashii nimankii ay qaateen lacag $10,000 ka reebay $10,000 buu ka reebay haye $10,000 6,000 intuu kala hadhay adigu markaa maalintaa imuu dhibana maalintii dambe ayuu horta igu yidhi Saleymaanow waxaan doonayaa gurigiina inaad tustaan adigu gurigiina tusto waad igeyso gurigiina oo caawa gurigiina tan ugu seexano albaarkada iska tegaya waa ujeedada guriga kala maxay wuxuu igu yidhi Saleymaanow inaanu is aaminaabaan doonana bahal baa sitaa qaaliya imika waxa weeye dee adiga laftirkaaga dee aqoon kuma lehi buu yidhi taksi ahaan mooyaane laakiin halka degtiyad kuma garanayo marka gurigaaga laftiisaan doonaya ma deganta hargeysa haa
xaafadayda kilarkaa baan geeyey aan guri yaro sandaqada halkaasaan iskaga jiraa aabahayna wuu ku jiraa bartii baan adigu geeyey marka bartii geeyey 2 qol oo sandaqada baan ku jiraa markaa kolley aniguba iska markaa waxaan aroos cusub baan ahayo aniga gabadheeda ku wada noolay guriga markaa gurigii baan geeyey qol yaroo ka midaan fadhiisanay aabahayna wuu bartay oo isaguna guriga jooga marka gurigaaga kugula hoyday mise gurigayga habeenkaa uu hoydayba halkiiba habeenkii dhan ku qayliyay markaa aabbana wuu bartay subaxii dambe ayuu hudheel yidhi hudheel gooniyi noo soo kiray aan kii hore kii hore ahayn haa kadibna hudheelkii baanu kiraynay wuxuu guri Saleebaan $4,000 aduu hay intan joognana wixii qarasha baxaya 4,000 baan ka isticmaalana 6,000 sideedaan haynaya markaa waxa weeye lacagta $4,000 wixii qarasha ka baxaya way bixi doonaan intaan aan joogo gaa waxa guri waxaan doonayaa doo Saleebaan maadaama gurigaagii arkay adiga in maxaa tahay Saleebaan baasha soo alaab qaaliya Ethiopia ku noqonaya nimankii aan baasha ka soo qaaday anigu marka hore in qof dal garanayaan hay $50,000 ayaan baasha idinka siinayaa waan ku $25,000 marka 10 cisho gudahood lagu geeyo bal doonaya meesha anigu marka 6 kuma hayaa bigu $25,000 bas Saleebaan la doonaya baashana fartan adiga ka saaraya adaa haynaya Saleebaan haddaad cid lacag nooga soo amaanayso oo dib geynayso eheladiina aad garanayso ma saasaabaa ku yidhi haa marka anigu waxaan arkay baashan la leeyahay garaamkii 20 milyan la siinayaa anigii igu yidhi waxaan ku siinayaa 1 milyan oo dilada Saleebaan marka baasha iibsanahay dhitole marka waxaan ku yidhi maxaad dhiibeysaa baasha haa marka ma lacagta sad doonaysaa weyn eegi doona way lacagta weyn baad doonaysaa adigu waxa dhacday marka anigu marka Saleebaan dadku yar faafay markan uu leeyahay bahashaasaad haynaysaa bahashii sidii uu ragana qaybta ugu dhiibay tijaabada ugu dhiibay ayuu adigu kulli wada haynaysaa na waan noqonayaa uu kulli biya wuxuu igu yiri bahashan anigu haddana wuxuu marka hore riski weeyaan bahashan igu yiri Ethiopia haddii marka aan kula noqdo yiri bahashan aniga haddii lagu qabto in lagu dilaabo dhici karto kow laga soo xabsidaan lagu xukumo markaasuu kugu aaminay hantida intaa laga yiri wasita wuxuu igu aaminay wuxuu igu yiri Saleebaanow maadaama gurigiinii aragnay aan gurigiinii arkay kitaabka Ilaahay baa kugu aaminaya kitaabka Ilaahay ugu dhaaray inaad khaayimayno bahasha aad sideeda u haynayso sideeda bahasha aad u haynayso inta soo noqonayo lacagta aan maxay tahay bahasha inta soo noqonayo bahasha aad sideeda u haynayso kitaabka Ilaahay ugu dhaaro Ilaahay wuxuu igu geeyay ku inaan ku khaayimayno anu daacad baan hayde sanu daacad ma noo haysta marka ninkii wuxuu sameeyay waxa ku yiri lacagta waan baadi doonaa lacagta la baadi gooyay maxay tahay $22,000 guri ayaa la doonayaa $22,000 guri $22,000 laga doonaya marka wuxuu igu yiri Saleebaan bahashan qaad adigu aan ku dhiibo bahasha meel gee lacagta ku soo qaad oo maxay tahay ku soo dad meel geynayso aad heli kartaa igu lacagta waxaan ku marka lacagta adigu isku baadi adigu ka doonay lacagta ku lahaa lacagta $22,000 adigu keen bahashan ahay marka hore aniga wuxuu Saleebaan ciidan $22,000 ka qaadan karanaysa oo bahashan u dhiibno waxaan lahaa waan noo heli karaa anigu markaa waxa jirta gaari weyn oo aan watay markaas oo aan iibiyay oo aan lacagtiisa haystay oo dad meherada iyo banjarla iyo wax iska in badan magaalada ka shaqeynaya $20 sano ka shaqeynayay kadib $16,000 baan markaa hayaa adigu leedahay anigu aan leeyahay ha hayaa meherada banjar noo shaqeynaysa markaa taxiyada ma wata markaa waxa dhacday $16,000 anigu aan ku lacag $19,000 baan hayaa marka lacagtan ugu yiri waan tagaya ugu yiri $19,000 kaysa hayo adigu lacagtan kale ugu dhiibeen wax kale ugu yiri waxna aan qarash ku istaan wixii kalena adigu dilaal ahaan u qaado $4,000 ha oo waxaan ka isticmaalay $700 meelaha marka ninkii adigu $19,000 baan wixii kalena adigu si aan ku helaba aan 2,000 kala soo qaaday $22,000 buuxiyay baasha ninkii fartiga saaray أنا لعبت فرق صارت بيها. أنا لعبت فرق كسر نيكاسو وسك أوهيني سوق هذا باشا إلى سليمان باشا إلى باشا سليح $1 مليون بأي جالس سليمان باشا إلى كتاب ما حقولني واحد هذا لك بحنية باشا هذا يقول من صحافة أيوة احتمال كستوى دركت لو مركا أنا قلت دارتي عن دارتي حتى أنا علما نتجا كل باشا سنين يجتي لعق عين كاسنا ويجا قاعد كتاب يقول داري أنا باشا إيبن
lacagta intaa lagna bahasha ugu sheegay dhowr jeer baan culimo tagtay waxay ku leeyahay hadii lagu dhaariyahay marka aniga waxay la soo gudboonaaday marka ninkii markii uu kuli bahasha hay allah musta'aan maxaa bahashaasna qiimaha inta leegoyay kooy la takano lacagna uu ka qaaday ninkii inteen leeg baan maqlaanay ay kuli gabiga shan ka maqlaanay igu shan ka maqlaanay gabiga waqtigu goormuu ahaa inta uu kuli shan ka maqlaanay tan markaa horta waqtigaas 2003 ka waad garanaysa bishii saddexaad meelaha saaran ilaa imika dib u haysan ninkii miya dib oo dambaysan ninkii oo dib oo dambaysan ilaa intaana bahasha waanahay imaka halka mobilkaygaas ayaa min dhawid oo imka aan bilba ka soo wareegin mar Facebook bahasha iyo TikTok to dad badan baa soo garaacay niman baa yimi xataa bahasha waxay u eegan waxay gulaad wax dab ma laha maar kuri wada haysan gulaad laakiin dab ma laha leo marka aad baan doo marka ma bemba bahashu ku qiimuhu kugu sheegay iyo bahashu kuli weyn haynaa bahashu waa maar kuri oo bahasha qaaliga uu sheegay way tahay laakiin bahashu waa dab qiimihii baan hayn miya dab baan lahayn baba la yiri dab bay bahashu dab bay leedahay la yiri markii ibsido dabkii baa ka baxay baa la yiri ma garat ama ma garanay markaa in dab lahayd iyo aniga filimka la dhigay ma garat bahashu waa bila dab baa la yiri oo bahashu laakiin waa maar kuri qaaliga la sheegay weeyaan marka ma la qiimiyay marka markii lagu leeyahay meel kuri ma la qiimiyay qiimo lagu sheegay waa dab ma laha baa lagu waana waxa lagu leeyahay fargalka waa in ka arartaa toonta waa in ka arartaa waa in la bixisaayo marka tester kolka lagu eego wax noocaas ma garanaysa muraayado kale in lagu eegayo ay ka soo dhex bixiyada waxa soo test ay gulaayeen ayaa loo eegay marka toonna lagu eego waxa kale dab ma laha marka lagu marka qiimo ma la macneeyo weey anu markii hore ahaa bahasha ninkan u dhibay bil dhan baana saxano mar kastaba lahaa bahasha maxaa lacagta ku qiiman milyan baa lagu siinaya wax kowle asay shay marka aniga de waxay la noqon weyday wixii aan sitay intaas oo dhan aan de bal ka dhusugayna salaab goorma ninkaas ma iman aan markii dambe isla horta waxaan eegniyo maar kuridana la haysan dadkana de kulay inta taqaano mooyaane de intaan aqoon way farbadanta bahashan laakiin in de Somaliland kamid way taqaanayo ganacsiyaasha kala iibsatay magarasa bahashan iyagu ma bandhigtay marka ganacsatada Somaliland iibsay baala markan aan anigu dhigay media Facebook oo kale markan dhigay dadkii la soo hadlay dad waxaan iibsado ganacsatada bay ahaa dadkii de waxaan ay u soo dirsadeen markii arkeen de ay de kale teskii waxay ka qaadeen waxay guuleeyeen wax shaqeynaya ma aha bahashan dab ma laha ma garat marka ninka ma garaysa in tixraam ka haysa ninka bahasha ku dhibay lacagtii inta la ka qaaday ninkan yow gabigiisa ninka muddo 8 cishaa baan tusnaa qaliba ninka gabigiisa ninka loo joognaa ninkaas de telefoon Ethiopia aniga qoray kaygana uu iga qortay ya sida marka Salawaan Ethiopia aan u tagana oo soo garaacay abigu ma garanaysa dib oo dambeysana war dambana uga maana telefoon qorayna oo telefoon xidhano ninka adu maal xeedha ka reebin maal eheladiisa weydiin maanad waxaan saad ku aamintaa waxaan weydiinin bay horta dhacday bahashan aniga horteeda lacagta la qiimaha la siisanaya ay nimanku lacagta horteeda ugu dhiibeen $10,000 ay yiraahdeen nasugu wan maxaa tahay muddo bilan ku imanaynaa baashii aniga $60 milyan igu sheegay baan aniga ii dhiibi anigu aabahay soo bartay anigu kitaab ugu dhaariyay anigu baa wada igu si ha anigu si sannigu ku aaminay anigu $10,000 dhiibo aniga asleey baa alaab ku soo galeen xoolo badan ku soo gacan galeen oo dad ku aaminay wixii siiyay يعني سقي بقى أنا مركز هذا كي لقي قفت ودرب كوام لو كل ده مقرنص كتاب كان يقول دار حافظ هذا صوت ما قرأت جدي أدود النورين أما نحن عايشة أسكرني سنة كاسة قرش وذاك هذا هيدين سان نوعية كتر أنت ساي لو نيك صورته أنا قلت ده كلمة ويقولها سلبان واحد يقول دار على حرتي كان لو سروالي لو شعر على لو نيجي واحد على حرتي كان بيقول أنا كم تقول في ذي مرة الدنيا قروي نيكو واحد يقولي ويقول أنا دار كلمة دنيا دار على قول حرتي كان أنا كان أنا واحد أنا ما أعرف كأنه أرتو ورب يريجي لكن هذا واحد يجي بي أيام بقى أنا ده يقولي يقصر عيا مليون لذني واحد قصة كان يجي حتى أمر واحد يقولي سلامانو أنا ما بدي أقول بني ما كان كيبي واحد الإمام عربه هاي الدوي ده شوكا أيه نمك كيبني تشمبي نمك هسوي يبني
calaa gram 80,000 oo dollar bay nimankaas siinayaan salebaan odan dadka kala saaxiibay bahashaa meeshii lacagta gaarigii lagu qaadi lahaa wata wixii arrinkii lagu waxaan qayr cadu ay ka shaqeeyeen garanaysa aan carruur bilaadanka geli kale jimbeenu ka iibinayna bahashaa nimankaasaaba jimka u iibinayaba dadka waxa bahashan mercuryda jin laga iibinaya miya ha wuxuu ku leeyahay niman caraba ayaa bahashan naga iibsanaya iyaguna jimbe ka sii iibinaya lacag qiimaha inay ku sheegeen 80,000 dollar gram ka iibsan sanaya ku leeyahay halku ninkan ku leeyahay 20,000 dollar baa siisanaya ya jimban ayaan bahasha nimankaas jimbe u iibinaya kale carabta anu kuwaasaan doonaya inaan ka iibiyo Salebaan nimankana 10,000 dollar inuu celiyaa ma jeclay marka waxaan aan iska soo dhameeyo lacagta adigu marka 20,000 dollar wuxuu igu sheegay anigu 6 kubaan haya 5,000 dollar ninkii bahasha lahaaba siinaya 1,000 dollarna nin wadaada baan siinaya oo bahashan fasax ka dhigaya iibkeyga ya marka horta arrimo horta waa noocaasay aniga igu dhacay waxaad sheegtay Salebaan inaad dacan tahay 20,000 dollar laga qaaday bahal lagu dhiyay bahashaasina aan sidii lagu sheegay aanay ahayn iyo waliba wax yar oo kale la socda jiro bahal yar oo kale iyadana California